Bismillahir Rahmanir Rahim. Halkan waa Horne Peace Prize Daily News Jigjiga Somali Region. Kusoo dhawow xidhmadannada ama podcastiga 19aad oo na kaga hadli doono oo barnaamijka samafalka xilliga xagaaga ee heer qaran oo markii ugu horeysay lagu qabtay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Barnaamijkan oo ah mid ku dayasho mudan ayaa waxa iska kaashaday xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xafiiska baarlamaanka ee federaalka Itoobiya. Afhayeenka golaha wakiilada shacabka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Tagase Chaafo iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa daahfuray barnaamijka isxilqaanka dadka danyarta ah guryaha loogu dayactirayo iyadoo oo sidoo kale dhirbeeris uu sameeyay caasimadda deegaanka ee Jigjiga. Dhirbeeristan ayaana qayb ka noqon doonta barnaamijka cagaarinta ee dalka si guud uga socda. Xafiiska baarlamaanka dalka iyo xukuumadda DDS oo iska kaashanaya ayaa waxay dayactir ku bilaabeen guryo gaaraya 30 qoys ilaa 30 guri oo ay leeyihiin 30 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Jigjiga. Haddaba barnaamijkan samafalka xagaaga oo markii ugu horeysay lagu qabtay caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa ku soo aadaya xilli ay roobabku xagaagu ka horan yihiin nawaaxiga gobolkan faafan. Mukhtaar Bashiir Aadan, Horne Peace Prize, Jigjiga, Somali Region. Warkan oo aanu ka soo xiganay xafiiska warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida ayaanu idin la socodsiinay amaana Allah amaana rasuul maalin wanaagsan kulan dambe oo xiiso leh.